dhalinyaradu wax bartay waxaan u baaqaa inay ku soo biiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sida uu wartagan cadawga dalka argixisada. Tan iyo markii dib loo howlgeliyay ciidanka kumaandooska Soomaaliyeed ee Danab waxaa sii kordhayay tirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee danaynayo in ciidanka ku biiraan. Waa qarannimo jacayl ay u qabaan dalkooda iyo in ay qayb ka noqdaan difaaca dalka iyo dadka. Boqolaalka sanad kasta loo qorayo in ay ku biiraan Danab waxaa ka mid ah dhalinyaradan oo laga kala keenay gobollada dalka. Waxay saf ugu jiraan in ay iska qoraan ciidanka sida gaarka ah u tababaran. Waxaa saldhigga Danab ee Bilidoogle uga socda dhalinyaradan hawsha dhamaystirka qorista ka hor inta aanan la bilaabin tababarka rasmiga ah. Maxay haddaba dhalinyaradan ku doorteen ku biirista Danab? waxay tahay sababtay u qasabtay inaan ku biiro ciidamada Danab inaan difaaco dalkayga, dadkayga iyo diintayda. waxaa marnay process wanaagsan. waxaa ka mid ah inaan marnay imtixaan physical marka koowaad laga qaaday, kadib waxaa marnay writing, kadibna waxaa marnay medical. waxaan rajeynayaa inaan ka gaaro guul wacan kana mid noqdo saraakiisha ugu sareysa ciidamada Danab insha Allah. sababtoo ah inaan difaaco dalkayga, diintayda iyo dadkaygaba. aad bay u wanaagsaneed. waxaan maray part 1 physical, medical, writing iyo medical inaan horumar iyo guul ka gaaro insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. Hannaanka ciidan cusub qorashada ee Danab ayaa ah mid hufan, waxaana laga soo xulaa dadka ciidanka loo qorayo dhammaan gobollada dalka iyo bulshooyinka Soomaaliyeed iyadoo aanan loo eegin qofka meesha uu ka soo jeedo. hase yeeshee waxaa jira waxyaabo si gaar ah loo eego ka hor inta aanan qofka loo qaadan inuu ka mid noqdo ciidanka. waxyaalo fiir gaar u leena waxa waaye qofku inuu lahaada xoog iyo qalbi iyo shaqooyinka adag oo Danab hayso oo inuu ka soo bixi karo yahay. Gabdhaha ayaa ka mid ah dhalinyarada loo qoro ciidanka Danab. waxay helaan dhiirigelin iyagoo muujinayo sida ay ugu diyaar yihiin in dalkooda ay ugu adeegaan si la mid ah dhigooda ragga ah. Sahro Daahir Cabdullaahi ayaa ka mid ah gabdhaha loo qoray Danab dhowaan. waxay maraysaa habraaca loo baahan yahay ay qaataan dadka cusub ee ku biira Danab. sababtoo ah inaan difaaco dalkayga, dadkayga, diintayda. waxay ahayd si wanaagsan waayo caafimaadka oo kaleeta la iga soo baaray, heerka waxbarashada oo kaleete muraseesyo badan waxa aan qaban jiray la iga soo wareystay. inaan askari daacad ah noqdo, dalkiisa, dadkiisa, diintiisa u shaqeeya, askari wanaagsan inaan noqdo. Saraakiisha Danab ee qaabilsan qorista waxa ay sheegeen in ay jiraan sababo mararka qaar keeni kara in dadka raba qorista loo diido in ay ciidanka ku biiraan. hase yeeshee ay markasta ku dadaalaan in ay taageeraan riyada kuwa haminayo in mar Danab ka mid noqdaan. dhalinyaradu wax bartay waxaan u baaqaa inay ku soo biiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sida uu wartagan cadawga dalka argixisada. ciidanka Danab wuu sii kobcayaa sanadba sanadka ka dambeeya. waxaa ugu wacan tirada dadka ku biiraya oo sii badanayo, tababarada iyo xirfadda ciidanka oo aad u heer sareysa.